madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa maanta waxay xariga ka jireen xaruntii ugu ballaarneed ee Agoomaha ee wax lagu bari doono oo laga furay magaalada Boorame caasimadda gobolka Awdal. Xaruntani oo hirgelisay hay'adda Qadar al-Khayriya ayaa ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay wakiilka Qadar al-Khayriya magaalada Boorame waxaana uu yiri markaskan waxay noo dhisay Qadar al-Khayriya run ahaantii hadaf iyo ujeedo ayaa laga lahaa muddo dheer ayaan sugaynay markaskan oo run ahaantii u baahnaa gobolku hay'addu waxa maaragtaa ay kafaalo qaaday aytaam ilaa 400 oo yatiim oo gobolka kamida istiisa isaguna waxaa hadalka qaatay wakiilka guud ee bariga Afrika hay'adda Qadar al-Khayriya Maxamed Xuseen waxaanu ka dhawaajiyay si aan uga qayb galno xarika jarkii ama furitaankii xaruntan iskugu jirta waxbarashada iyo daryeelka agoonta oo hay'adda Qadar Khayriya ay ugu tala gashay inay ugu adeegto marka koowaad agoonta ay gacanta ku haysa ee ku nool magaalada Boorame iyo gobolkan Awdal gaar ahaanna kuwa waxbarta ee waxbarashada gaaray iyo guud ahaan ardada kale ee deegaankan ee masaakiinta ah ee u baahan inay wax bartaan inay waxbarashadii ay u baahnaayeen ay ku helaan geestooda waxaa hadalka iska daba maray maamulka gobolka Awdalka degmada Boorame iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Cabdullaahi Obsiye waxaana ka dhawaajiyeen niga mahad celinaynaa hadda tihiin hay'adda Qadar al-Khayriya waxaad naga daboosheen baahiyaadkii asaasiga ahaa oo degmadu u baahnayd mid kamid ah waxaan la qabaa maayarka magaalada mahad celinta uu mahad celiyay iyo amaanta uu huuyay hay'adda Qadar Khayriya iyo hay'adii kale la shaqeeyay gobolka joogay iyo kuwii dhismaaba aad baan runtii idinka mahad celinaynaa waa mas'uuliyad qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland saareed oo anagu wakiil uga hayn aniga maayarka iyo golihiisa deegaanka ayaad gudateen oo noo qabateen waan idinka mahad celinaynaa farxadino amaanta halkano aan ka furayno amba laga furayo madaxweynuhu inuu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku mashruuca Qadar Khayriya ay samaysay oo ay taamka laakiin waa wada shaqeyn doonaa hawshii aan muxuu ahaadee uu egmanaabad muxuu ahaa kulley ka soo qayb galay maanta marxaatina ka ahay barnaamijka iyo siyaasadda lagu hagayo mashaariicda noocan kala khayriga ama horumarinta ku saabsan ayaan kulley ka wada shaqeyn doonaa insha Allah ta'ala ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli waxaanu yiri waxa maanta dhamaanteen farxadino ah inuu furno markaskan cusub ama rugtan cusub lagu barayo agoonta oo ugu mudan tahay dadka agoonta ah hay'adani Qadar Khayriya gacanta ku haysay iyo intii kale xaafadda halkan nasiibka u heshay in halkan laga dhiso carruurteeda way wax ku baran doonaan ilaahay bay nagu mahadnaqaynaa inoo soo qadaray halkan maanta gabadha khayrka badan leh inay soo dirto hantida inta leeg oo rugta inta leeg lagu dhiso waxaan kaloo marka labaad u mahadnaqaynaa hay'adda fududeysay ama inoo keentay Qadar Khayriya isku soo wada duuba xaruntan ballaaran ee Agoomaha ee wax ku baran doonaan in ka badan 400 oo agoon ah oo ku dhaqan gobolka Awdal ayaa waxay noqonaysaa xarunta ugu ballaaran ee abid laga furo magaalada Boorame. Xuseen Caatiye Jaamac Xuseen Gaafane telefishinka caalamiga Universal magaalada Boorame.